madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii uu hogaaminayay baryahanba socdaalka ku marayay gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka ururiyadii hore ka soo kicitimay xarunta gobolka Togdheer ee Burco isagoo madaxweynaha iyo waftigiisu ay u soo jeedeen dhinaca magaalada Berbera مسؤولين gobolka iyo degmada Berbera ayaa madaxweynaha iyo waftigiisa kaga hortagay xadka u dhaxeeya gobolada Togdheer iyo Saaxil iyagoo u soo galbiyay dhinaca degmada Sheekh dadweynaha aad u tiro badan ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waftigiisa magaalada Sheekh dadweynuhu isugu soo bixeen laamiga hareerihiisa isla markaasina ay ruuxayeen calanka astaanta waa dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland caleemo qoyan kuna dhawaaqayeen halku dhigay iyo heesa ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha iyo waftigiisa madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaayo ayaa intaasi kadib khudbad u soo jeediyay dadweynahaasi sida weyn ugu soo dhaweeyay magaaladaasi Sheekh isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqay soo dhaweyntoodaasi dadweynaha reer Sheekh ee sharafta leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan loo soo dhaweyseen sida caadadaynahay Sheekh waa magaalo siyaab badan aan ugu xiganahay waa magaalo wax ku soo bartay waa magaalo ka guursaday waa magaalo taariikh fara badan ku leeyahay halganka iyo ummadana taariikh fara badan bay ku leedahay marka sida caadada idin ahayd ee dhaqanka idin ahayd waa inaad dar walba sida aad u soo dhaweysaan dalka iyo dadka taariikhda ku leeyahay mid la bilaabana marka safarka dheer aan soo marayna waa mid aan ku faraxsanahay inaanu dalkii iyo dadkii isku xidhaynay inaad qiimaysaan oo aragtaa siday tahayna aad baan ku mahadcelinaa madaxweynaha ku horna waxa halkaasi hadallo mahadnaqa u soo jeediyay madaxweynaha iyo waftigiisa sidoo kalena si weyn u soo dhaweeyay magaaladaasi Sheekh gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Sheekh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye waftigaasi ayaa intaasi kadib u soo ambabaxay dhinaca xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyadoo dadweynaha u tiro badan ee madaxweynaha iyo waftigiisa ay si weyn ugu soo dhaweeyeen magaalada Berbera taas oo ay hay'adaha dawladda ardayda dugsiyada iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee laamaha dawladdu ay madaxweynaha iyo waftigiisa ay ku soo dhaweeyeen meel ka baxsan magaalada Berbera madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa markii ay soo gaareen magaalada Berbera waxa ay si toos ah u booqdeen isbitaalka degmada Berbera oo lagu daaweynayo ilaa 4 qof oo dhaawac ka soo gaaray shil baabuur oo ka dhacay meel 3 kiiloomitir u jirta magaalada Hudisa taas oo ay ku jireen wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxaana kamid ahaa 4 qof oo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Abdullaahi Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Salebaan Ciise Xagle Toosiye afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Salebaan Duxul iyo gudoomiyaha hore ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier Mustafa Cabdi Ciise Shiine dadkaas oo dhaawac fudud ka soo gaaray shil baabuur oo ka dhacay meel u dhow magaalada Hudisa kadib markii ay isku dhaceen laba gaadhi oo ay kala saarnaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mas'uuliyiintaasi u rajeeyay Ilaahay uu caafimaad sareecan uu siiyo isla markaasina uu uga sahlo dhaawacaasi ka soo gaaray shilkaasi baabuur waxa sidoo kale maanta ku geeriyooday magaalada Hudisa alla naxariista jannaha ka waraabiye shil baabuur chief Caaqil Cabdi Hadoodil oo kamid ahaa ugaasha gobolka Saaxil kana mid ahaa mas'uuliyiintii soo dhaweynayay waftiga madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Silaayo ayaa tacsiin u diray qoyskii iyo qaraabadii iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay chief caaqilkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera